Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay madaxweynihii hore Shariif iyo ra'iisul wasaarihii hore Kheyre. Kulanka ayaana waxa uu ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble. Qoraal kooban oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu ka soo saaray kulankaas waxaa lagu sheegay in looga hadlay hirgelinta heshiiskii uu shalay gaaray golaha wada tashiga qaranka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay madaxweynihii hore Shariif iyo ra'iisul wasaarihii hore Kheyre oo ay ka wada hadleen hirgelinta heshiiskii uu gaaray golaha wada tashiga qaranka ee dardargelinta iyo dhameystirka doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble. Kulankan uu Rooble la yeeshay xubnahan ka tirsan golaha midowga musharaxiinta ayaa waxa uu ku soo aaday waxyar kadib markii uu soo baxay war-saxaafadeedkii ay madaxda golaha wada tashiga qaranku ku shaaciyeen heshiiska cusub ee hanaanka loogu saxayo doorashada Soomaaliya. Dhammaan xubnaha midowga musharaxiinta ayaa shalay la kulmay madaxda golaha wada tashiga qaranka iyaga oo ku biiriyay talooyinkooda ku aadan sixitaanka cabashooyinka doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya. Golaha midowga musharaxiinta ayaa soo dhaweeyay war murtiyaadkii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka oo Muqdisho ka socday muddo 7 ah. Midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada ku amaanay tixgelinta la siiyay talooyinkii ay la wadaageen ee ku aadanaa sixitaanka habraaca doorashooyinka. Sidoo kale musharaxiinta ayaa bayaankan madaxda golaha wada tashiga qaranka uga dalbaday inay iswaafajiyaan habraaca iyo habdhaqanka doorashada. Goluhu wuxuu adkeynayaa in ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu ay si buuxda mas'uul uga yihiin amniga dalka. Madaxweynihii horena uu ku ekaado musharaxnimadiisa. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa ballanqaadka ra'iisul wasaare Rooble ee ku aadanaa mas'uuliyadda xukuumadda ee amniga dalka ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta. Ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka dalbaday inuu kor joogteeyo doorashada oo uu si buuxda markaasi isaga xil saaro daahfurnaanta doorashada. Goluhu wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaaraha inuu xil iska saaro dhaqangalka habraacyada, kor joogteynta daahfurnaanta doorashada, furitaanka saaxada siyaasadda oo ay ugu horeyso xorriyadda mudaaharaadka, kulamada ololaha, safarka iyo warbaahinta qaranka oo loo ogolaado musharaxiinta ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka.